nasiib darro dagaal aynaan u baahnay baa ka dhex dhacay ka socda Soomaaliya iyo Soomaaliland maanta Soomaaliya iyo Soomaaliland dagaal uma baahnay inagu istuurka loo baahan inuu dadka dilo u baahan waxaan u baahnay inuu iskaashano si dhibaatooyinka ugu baxno abaaraha yaraanta iskuul la'aanta caafimaad darrada shaqo la'aanta inaan isu kaashanaaba Soomaaliland hadafkeedu taas oo ahaa inay jaarkooda nabad u fidiyaan inay wax wada qabsi u fidiyaan inay jaarnimo wanaagsan wada lahaano dhinac walba Soomaaliyada taas mar kula socdo oo ka rabnaa maanta iyo shalay iyo imikaba nasiib darro dad u baarinta fahmoodo ay weerar u kaga dhigteen weerar ugu soo qaadaan waa diiniyo qofku hadii la soo weeraro inuu difaac nafsi karo markaas Soomaaliland difaac u ku jirtay dadkeedii qarnimadeeda weerar uma socoto waxyeelo jaarkeeda uma socoto kuwa Soomaaliyana iskaba daa waxaan u tarreemoyaan waxyeelo dagaal uma socoto marka waxaan u tarneeyaa dadka Soomaaliya ka tirsan gaar ahaan Puntland ee qayradanta dheer ee qabariga ah ee isirka awooda waxa ka wanaagsan inagu oo iskaashana oo laba qaran oo laba dawladood oo walaalo ah oo isku afa oo isku diina oo isku mid ah oo wax istareen noqonay dabka ka baxaya Soomaaliya shan iyo garoweena ku soo rutay Soomaaliland walaalayaal ma jirto haduu guriga gubanayo waa kula baxteynayna laakiin adigu dabka kale ha u soo gudbin taasina waa tala waayeen oo filayo walaalaha jooga xamar iyo garowe xuduudaha uu sameeyay isticmaalka ee Afrika oo dhan anagu ma naasabay mana bedeli karo Afrika oo dhan xuduudaha ku dhisantay xuduudahaas oo ka mid ah Soomaaliland maanta waa mid waxay ku fogaan tahay horumarin waxaan ka doonaa waxaan gobolada nagu calaantaa waxa waayirkii wadaashu hadaan waa laba dhisin dhakhtarkii iskuulka lama dhisin halka wadada lama sameyn ceelka lama qodin uma jeedo ciidan iyo dagaal iyo maanta khasaare ka daatay waxaan leeyahay taasina way waanaha ka waantow oo qolada maanta aad u aragteen idaacadaha iyo social media adagada qaawan ee qabaanka ku dagaalamay waxaan ugu qalad Soomaaliland isir kama jiro ee waa qaran isku mid ah bari ilaa galbeed iyo cadayla baran qabiilka iyagu waa Soomaaliland wixii laga hadlayo waa Soomaaliland oo u siman dalka si walba wixii ka qadan gudaha ka toosanta taariikhda saarkuliya